mudanayaal iyo marwooyin madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo kelmadiisa isna halkan ka odhanaya. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمان واحد قرنكا مدحونا كحيجينكا قدوميها البورتيدا قدوميها بارلمانكا قدوميها محكمة السرة وزير وذا حبناها بارلمانكا حبناها قدوميها أحزاب القرنكا دبلوماسيين تيجوا وفود الدبادة هنا تمد شعبوينها ضمان مرتشرف تشوفته كان عستوى وين علماء رياض وربا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب هذه أبي فرحة قلتها هاي عاوة إنا نكسو قيب قال له إنه نبضة حاسلون هرمر سمايني روبكو ينود أبرواقا إلهي نسيي عذرك كوفي 19 أدون كوريري إلهي إنو خفيفيي نمعادا بدني بينسيي إنو كوما هذا قينا إنو عاوة ودبال دقا إنو كوبي لحظة سنوضو كسوريقي مالنتي أنو حرمة دينا قاضني كل راقي مايو تاريخ آدبا لو قري وكتبتا قرطي ووالا قدر ركسي هايست تاريخ الهوري سومالي لان سيكوان مركانو إلهضو qarnimada markaynu qaadanay sidii uu sheegay imika baasha maxamed faarax qaybtii horeba waa la isku diiday. shan Soomaaliyeed baa loo socday, shantii oo la doono mooyee labadii isu tagay ayaa dawladii Somaliland markay koonfur tagtay waxba loo ogolaan waayay qayba halka qardoofadii ka dhacday iyo khilaafkii ka dhacay كوبي اللي إحنا كي انقلاب خواتي هالكن لقى دقي إنكستون سورة قلين أنت كده بيسنا قحر يا أولاد يا بوق بين واحد شن صومالين هلا دورنا ولا واي وايو شرعية أدون كان يكون شقية إنك حوق وأوينه أيها ديدنا إنك هنا ما ينال هين أقوم غير أو سياسات سيلك هبك أدون كان رجع حوق اللي يقول تريه مركا ما ينال كقوليسن إن شتى سيمادان ما تمسيد وشاقي سنتر كينيا ولو اللي بهالكيد بيكون نجاتي صد حدي كلا لما ينوي تشوجينا لما تقال بينو قالي أفريق اللي حدن كي يتدبي اللي حدن كي والله ما بقوليس كود كنا عيسون ماريلان وايو تقال كأوه يتوبي لقى يوح كنا عايي سوماليلان ذو وجودو ماشي يتوبي اللي سكوب قبسنا عايي وقوليس كله هاي يوتهين labadii midna guurweyn kamayna gaarin waayo caalamka inaga soo horjeeday. dabeetana waxa dhacay dagaalkii 77kii bishii February markii laga soo noqday labadii midoobay oo marka horeba colaad iyo guux dhex yaalay markii adduunka inaga hor yimid ee Ruush iyo Kuuba iyo cidii kale oo ay isugu tagtay Soomaaliyeed loo ordaayay shantii dhabarka laga jabiyay ee adduunka inaga hor yimid nasiib darro dawladii markaa talinaysay may garanin ama may ku dadaalin haddii la soo jabay oo caalamka inaga hor yimid maxaynu yeelaa see loo badbaadaa see labadana yeelaa balse waxay door biday inay aragto inuu reer waqooyigu yahay dad dhib badan oo dawladaha ka soo horjeeda. horteed markii ay wada qaateen prime minister iyo madaxweynahaba 76kii dawladii Cabdirashiid ayaa prime minister waqooyiga maxamed xajure cabdullah ka dhigtay 2 sano lagu inqilaabay iyadoo laga careysay yahay sidee waqooyi prime minister uga noqon kara. dadkana waxa abuurmay hal jabhado iyo dadkii oo kala yaaca labadii dal midka ahaa. Somaliland nasiib wanaag waxay soo halgantayba markii ay burburtay dawladii dhaxa ee labada dal isugu tagay 1990kii Somaliland taladeedu waxay noqotay intay soo timid inay tiraahdo inagu waxayna dhisan
intaasaan ku dhaafayaa taariikhda hore ee ilaa 19 lixdankii 19 wixii ka dambeeyay aynu gallo waxaan doonayaa caawa inaynu isu sharaxno maxay ku kala duwan yihiin Somaliland iyo Soomaaliya waxay ku kala duwan yihiin Somaliland waxay ku fadhidaa sharciyada adduunka oo dhan sharcigan adduunku maanta ku shaqeeyo ee diblomaasiyadda la yiraahdo ee ereygan national qaran sovereignty-ga la sheegaa wuxuu salka ku hayaa 1648 Yurub oo birta iska asashay oo 30 sano isdilaysay oo qolo iyo gobol isu idlaysay oo beriga ilaa 8 milyan 7 milyan iska dishay ayaa waxay qabteen shirka dhaa Westphalia shirkaasaa lagu aasaasay in la yiraahdo dawlad madax bannaan inta israacdaaba inay dawlad noqdaan oo qaran noqdaan oo xuduudooda yeelata oo iyo ku heshiisa oo dastuur ka dhaxeeya samaysta halkaasaa laga soo bilaabay waa markii ay oran jireen caadiga cusub reconnaissance-ka dadana adduunyada way ku xoogeysteen adduunyada bay ku fideen imperialist bay noqdeen oo dadka ay isticmaalsadeen dhaqankoodaasay ku fidiyeen caalamka markaasaa taasi san u noqotay adduunyada cusub oo dhan waxaa sii raacay 1913 dagaalkii labaad koobaad iyo kii labaad dhexdoodii haddana waxay galeen iyagoo markaa adduunka ku amarku taageeraya reer Yurub oo xoog weyn shirka dhaa mudaafiya oo ahaa isaguna waa maxay qaran way micneeyeen waa la akhriyi karaa inuu dal yahay inuu dhul leeyahay inuu dhulka xukumo saddex qodob ka afraad saddexaad 1648 iyo 1933 laba heshiisa Yurub samaysatay u gaarka ah waxaa haddana kaas sii akiday oo ku fadhiya salka 1945 jimciyadda quruumaha ka dhaxaysa markii la sameeyey jimciyadda quruumaha waxa sameeyay raggii ku adkaaday dagaalkii labaad ee adduunka oo Mareykanka hormood ka yahay iyo Yurub ayaa gobol dhigiisa lahaa markaa sharciga waxay xoojiyeen labadoodii sharci dhaqankooda ahaa hore waxa la yiraahdo dadka in la ogolaado ay ka tarintooda inay ogolaadaan dadka in loo ogolaado in qaran loo ogolaado oo determination cod iyo dadku waxa ay rabaan in isticmaalka laga daayo oo isticmaalka la baabiyo dadka xorriyadooda la siiyo waayo waxa la yiraahdaa heshiiskii Atlantic-ga Churchill oo ka baqay in iga la qabsado markuu Hitler Yurub oo la qabsaday ayaa badda u tagay madaxweynaha Mareykanka markaasuu hadda soo gurman Yurub oo la qabsanaya wuxuu ku markaa Ingiriisku wuxuu ka baxay mustacmarad Ingiriiska uu ka baxay Mareykanku oo waa loo colayo oo isaga isticmaalsan jiray oo xoog kaga baxay markaa wuxuu shardi kaga dhigay waa yahay dalka isticmaalsan xoreeya oo dadka xorriyadooda ogolaada markaa saad caawinayay heshiiska Atlantic-ga ee ka soo bilaabmay iyo inta iyagu islaaf garteen ayaa jimciyadda quruumaha xaysada lagu qoray artikalada odhanaya waa in dal waliba iyo dadka loo ogolaado xorriyadooda waxa afreeya oo Soomaaliland ku fadhida sharciga waa 1960 markii Afrika 22 dal ugu horeeyay ay ku kulmeen Qaahira ee ay yiraahdeen maxaynu yeelnaa isticmaalka waa ka naga kacay waxa la yiri isticmaalku Afrika wuxuu qaybiyay suuq doono intuu maab eegay in walba gooraysa ku kala tuuray qabiil walba wuu qaybiyay dad wala isku afal wuu qaybiyay dad wala isku diinaha wuu kala qaybiyay haddaynu maanta isugu doonana sida la isugu af iyo qorayahay Afrika dhamaan mayso marka waxay doorsadeen inay Afrika ku fadhido xuduudihii isticmaalka iyagoo dan mooday laakiin dhibaatooda dawladda qureedida waxay dawladii Somali Republic ee markaa ku midaysnayd Somaliland iyo Soomaaliya iyaga oo leh shantii Soomaaliland aanu gudoonaynaa ilaa 63 ilaa 87 dagaalka lagu jabaayeen dhibaatooyinka iyo dagaalada Soomaaliland soo gaaray markaasaa la gartay inuu adduunku inaga soo horjeedo adduunkana aynaan ku qasbi karin siduu yahay saddexdii dal ee gobolay naga maqnaana waxay ku cibro qaateen isha cali ka laalaada Soomaaliland halkii la dhigay arkeeno mid walba halkeedii bay qaadatay marka waxay ku kala duwan yihiin waa taariikhdu
markaas Soomaaliland afarta caalamka oo dhan ku fadhida laba maxay Soomaaliland hore ugu martay ee nabad u noqotay ee koonfur u degi weyday Soomaaliland waxay ku fadhidaa xukunkeeda iyo goboladeeda iyo doorashadeeda iyo ismaamulkeedu 1966 Juun sharciga ay ku deganayd ee isticmaalka ka dhaxashay ee Afrika oo dhan ku shaqeyso ay Soomaaliland ku fadhidaa Somaliland waa degmo ee Ingiriisku ka tagay 1960 shirkii Burco iyo kii Boorame iyo ahdi qarameedkiiba mar walba waxay isku raacanay Somaliland oo u qaybsan goboladii uu ka tagay Ingiriisku 60kii oo aynu burino wax alle wixii dawladihii kale ee ka dambeeyay ay sameeyeen inaanay sharci ahayn 6 gobol ayaa xuduudaha dalku noqonaya oo waxa gobol looga dhigay way dadkii abatay ila waqti badan baa soo wareegay laba golayaasha sharci dejinta ee baar waxay ku fadhiyaan 60kii oo ah baarlamaankii 60kii ay lahayn 33 ahaa oo lagu dhuftay tirada loo qiyaasay inuu dadku kordhay waxa la isla gartay ugu yaraan markaa waxaa la joogay 2005 60kii ilaa 2005 haddaynu ka soo qaado dadku inuu kordhay laba jibaar iyo badh inaguna aynu golayaashii ka dhigno 33 ahaa aynu ku dhufana 2 iyo badh deetana 28 bay soo baxeen saasaa baarlamaankana loo qaybiyo ku fadhiya waxyaalaha xeerka dastuurka u muhiimka oo dhan wuxuu ogol yahay in lagu shaqeeyo labadaa tiir si ay u sugnaato midnimada isu miisaanka iyo tooyinka aynu waa qaar caadi ah isku dhacayo khilaafiyaa yimid waa dhab waxaan ku seenay dal marka waxaas ina soo maray laakiin waxaynu beeska ugu fadhinaa waxaynu nahay sharciga Afrika oo dhan ku dhisan tahay oo inuu gaar ugu heshiinay oo ah inaan ku fadhino xuduudihii Afrikana intaas oo sharci ugu yihiin dalkeena aan ku qaybsano maxay ku kala duwan Soomaaliya hadaba ee kale inagu sodonka sanadood dib kasta oo ina soo martay waxaynu ku heshiinay inaan daldhis horumar iyo wada iyo iskaashi waxaanu dhisnay inuu ka bilowno si nabad loo helo inaynu ciidan adag dhisno ciidankaasoo inta ku shaqeeya wadaninimo ee aan ku shaqeynay anigu maxaan dheefayaa oo dhigeedo ku hura dheef badan oo aanay helin waxaanu dhisnay shaqaale darban oo danta guud ka shaqeeya oo aan iyagu daryeelkooda ka fikirin ee dalka dhisa markaynu labadaa helnay waxay noo dhismay hay-adihii dawliga ahaa dalkii baa degay amarkii baa la kala qaatay kala dambayn baa timid deetana waxa inoo dhismaynu bilownay inaynu caafimaadkii ballaarino oo gobolada gaarsiino tayadiisa inaynu wanaajinaa way inoo socotaa way dambaysaa tacliintii ayaynu iyana dalkoo dhan gaarsiinay tayadeeda iyo wanaajinteedu waa wax inoo socda waxaynu samaysanay inaynu wixii adeegyadii bulshada iyo adeegyadii dhaqaalahana aynu hore u marino kolba intii taagteena oo aynu wadno waxaynoo abuuray suuq xora ama ganacsi xora oo gaar loo leeyahay oo xooga oo adduunyada la tartamaya oo waxa urtageliyay inuu hore u maro nabadgelyada ciidamadu abuureen hay'adaha dhismay baarlamaanka dhismay iyo maamulka dawladda dhismay u hirgeliyay oo maanta la tartamaya caalamka Soomaaliya inta aynu inta qabanaynay maxaa ka dhacay nasiib darro may heshin nasiib darro sharci may qaadan ay oranayaan ka Afrika qaatay lagu dhaqan yahay 60kii aynu ku noqono oo Soomaaliland halkeeda ku noqoto inaguna keeda ku noqono gudahooda kumay dhaqmin 60kii markay dhaxleen waxay sameeyeen gobollo ku samaysan qabaa'il dadka khilaafkoodu waa degay waayay ilaa gobol bay suleynayaan waayo wadada mareen baa qaldan oo iminka galeen
muddada inagu aynu jiray waxaynu ku guulaysanay kolkii horena shirar aynu qabsano markii dambana 7 doorasho 3 madaxweyne ayaa isku bedelay si nabadgelyo oo cod iyo hal qof 2 baarlamaan baa isku bedelay waxaa isku bedelay 2 goorood dowladaha hoose ah ayaa isku bedelay in ay doorasho nabadgelyo aynu ku kala qaadno waana ilaahay mahadii iyo awood ilaahay ina siiyey maanta maxaa taagan intaynu 7 doorasho galaynay iyagu Soomaali 30 sano doorasho iska dhaafay waxaa loogu taaglayahay kolba hay-ad ama dawlad shisheeye shiraa u qabato oo lagu soo magacaabo dad fara ku tirsan dhowr boqol inay madaxweyne baarlamaan doortaan ayaa loogu taaglayahay oo arkaysan waxa ka dhacaya waana systemka ma dadku ma xuma systemka ay qaateen baa qaldan aynu ka baydnay oo maanta arkaysaan halkay marayaan waxaynu ku kala duwanahay inagu Soomaaliya haddaynu nahay marnaba colaad iyo faragelin iyo dagaal ay ku qaado maynaan qaadin iyagu ha ugu daraataa maanta joogta xamare waad ogeydeen markii berbera aynu la heshiinay qolada carabta inay horumariyaan waxay nagu yiraahdeen baarlamaanka xamaro ogolaado ma lama iman karo dowladda imaaraadkana ilaa United Nations ka dacweeyeen oo dalkaygu farageliyeen gobolada iyadii bay naga soo farageliyeen waxay soo taageen inay yiraahdaan sanduuqii loo furay dhaqaalaha Somaliland ee lagu heshiiyay shirkii London 2012 in si gaara dhaqaalaha Somaliland loogu deeqo inay ka joojiyaan ay ku dacwadaan annagana la ictiraafsan yahay looma gudbin karo ona qabatay dhaqaale waxa maanta xaniban lacag ku dhow ama ka badan 60 milyan oo asad 4 sano dawladda xamar joogtay maanta ee farmaajo ka madaxdeeya banka adduunku uu u qoondeeyay Somaliland oo iyagu soo qaadeen oo yiraahdo anaga u geerinay oo aanu ku niri annaga qolada waxba naga dhaxeeyaan lacagna noo soo mari karto oo aanay celinin ee wali meeshooda ku hayaan haddana waa u sheegaynaa banka adduunka iyo hay'adaha United Nations ka jibcada waraxaya iyo dawladaha kale annagu qaran madax banaan baanu nahay ninkina wax nala damca ee aan iskaashanayno ama na caawinaya toos buu noo siinaya laakiin xamar wax soo mara annaga waa naga xaaraan halkooda haysta inta ayaan ka badanba waayo gobernimada kuma doorsanayna lacag nalagu gacan maroojin maayo dhaqaala la diiday si cad baan u sheegaynaa annagana ka adkaysanayna si aanu hore ugu marayno dalkayaga markaan soo koobo caawa xamar waxay leedahay waxaanu u dabaaldegaynaa gobolladii waqooyi xorriyaddooda anugu meel ka dhaca ka weyn iyo gardarre intaa ka badan garan maayo in caawa xamar ay tidhaahdo annagaa xukunno oo Somaliland waa gobolladii waqooyiga oo waxaan u dabaaldegaynaa xorriyaddoodii xaggana Somaliland dagaal gudaha ah iyo mid xabada iyo mid cunaqabatayna iyo mid diblomaasiya iyo mid midyaan ku haynaya inaanay madaxa kor u qaadin haddana waanu dabaaldegayaa iyagoo gobollo ah waxay ila tahay waa gef iyo meel ka dhaca weyn waxaase la yaabanahay qolada Somaliland ee taa kagala qayb galaysa ee ugu sacabinaysa waxaan ku soo koobayaa wixii badnaa ee inoo qabsoomay iyo intaa kooban oo aan u sheegay da'yarta waxa inoo dhaxeeya inaga iyo Soomaaliyada la sheego in ay Somaliland maanta taagan tahay meel ilaahay lagu mahadiyo hadday horumar tahay hadday karaamo tahay hadday ixtiraam caalamka tahay hadday gudaha nabadeeda tahay hadday doorashooyinka tahay waana nimco ilaahay ina siiyey waxaana koowma haddaane oo arrintaa aan ugu mahadnaqaynaa shacabka Somaliland meel uu joogo oo dhanba haddayna sidaa wada guushaa waynu wada leenahay qof kastoo Somaliland baa qayb ku leh oo Somaliland aaminsan shalay berbera caalamka ciddii daawatayba iyo ciddii aragtayba
ويكون فرح الصومال الذي تذكر كلا قدرين يا كرامة إنه كمنتين ولا لا يلتقي مسكحة ذو كردوانته وحين يوقناه أفر سنة كهر مركا أريتا أحمد وينس أحمد سلاي وبلاد مدحوينه هوري إلى هي كأوار مريه وهندسها قراي سيدي لو ظهر يبيد وحي أهيد كورماتكي وقوينا ووح لو هداي يسألون قاعد يجاوبته وحكوا السياسيين ضد شعبي ولا شهورية وبربرة رضعيا والكبار قاضنيا وأنا سويدين ملوك عيد هرتا وضفانا أذكر كوري مادين واحد لجارسية حزبية معارض كاركود إلى هذان أحمد سيناي هو خير وطن المحكمة لقيه قدوميه وقت قاسي كل بينا وكرة أو لبضوا تنبيله يار إلى هذين أي تاريخ القريسة وح إلهي مهدية إن رأيك وسرايا برابع كل مية قرشيسة كشري إن ما أنت كي كسور جديد كي كلاسيس كل مدة فرحات يدا ما شاء الله قريب قرين والسماء لأنه يسحب كل ميسي تاريخ دارا قرطة dadka visionka dheer leh qaranka dareynaya halka uu joogo iyo cidda ay taladu kala kooban tahay meel gaaban oo ama dan gaara ama hebel waatee ku xanib ay tahay walaalayaal taariikhda kala qoraysa maanta waxaynu gaadhnay guul caalamka oo dhan uma jirto oo dimuqraadiyadda oo siyaasiya oo dhammaanteen guusha aynu wada leenahay oo adduunka oo dhan qadarin bari iyo galbeed inoogu hayo doorashadii aynu galnay ولا لا يلقى بكستها نجا صومرته حزب هذا وانا سكو قبص إن بدن بان لقوا مرماي إن بدن بان دولة كريحين هذان حكومة الناهي إن بدن بان لقوا قرية إلى هم هدي ونكشي وانا قبل هذا حزب هذا معارضة ده دير كبعدين ونكشي وحم هذا لبعض السيلة شعبك النجا قاتي ورا نبضكوا عنينه وركيسوا بحبوا كيني إيوه حزب هذا هي حكومة مدحوينه أرنتها نحن كنا قلنا لحظة أينو كنا قلنا يشعب كون واردي قاتي أينو كبوي سندي ما تروى يقول سومال هذا وقرنا waxaan ku soo gabagabeynaya halkan waxa doonaya inaan ku soo dhaweeyo uga mahadnaqo xildhibaanadii ku guuleystay doorashadii kuwii aan guusha maanta soo bixinay Britain way soo baxayaan waana kayd qaran oo may khasaarin waxaan xusayaa inaan aad uga xumahay ay Soomaaliland halka ku taalo dhaliil inaan mujtamaceena qayb kamid ah boqolkiiba 50 kamid ah mujtamaceena aanu ku soo bixin doorashadii golayaasha oo dumarka oo nus dadkeena waana fooxmay nagu taala in qarankeena nus dhami soo bixi kara waayo oo hawsh dalka ay nalale warana maskaxi way soo dhawaadeen haweenkii tartamay waana ku bogaadinayaa meelay ku niga jawaan ma joogo gabadha ugu sareysa 48 cod bay ku weyday 48 buu ka horeeyaa ninka ka qaad 48 berbera gabadhay ka sharaxa mid ka mid meel wanaagsan bay joogaan oo Britain ka qayb gali karaan waxa kale oo inoo sharaf waan ku faraxsanahay inay gabar ka mid ah hablii ku soo baxay golaha deegaanka loo doortay mayor degmo oo ay maanta aynu hayno gabadhii labaad ee Somaliland mayor degmo ku soo baxdo taasina way noo guul waqtiga aynu hayo waxaan ku soo gabagabeynayaa Somaliland halka ay joogto dhalinyaro soo koraysa waqtiga leh in ay ka sii hor qaadi karaan oo huwa inay aad jecel dalkooda waxaanay ku hormari karaan dal jacayl nafurid midnimo dalku isdhex gala oo mid loo kala walaalka yahay iyo oo wax walba laga hormariyo sideen qarankeena u dhisnaa oo aynu qofnimada soo galashay lowna talabaad qofna Somaliland oo dhalinyarada waa inuu yeeshaa qabka Somaliland wixii wax u dhimaayay Somaliland afyeedina kolbati uu la yimaado kaga hortaga kii af Somaliland wax ku yareeyo waa in falaga celiya kii gacan la yimaadana waa in gacan laga celiya ee arayna qorin Somaliland meel cad u soo hartaago taan dhalinyarada faraya rag iyo dumarba waxaan ku soo gabagabeynayaa guud Somaliland waxaan u mahadnaqayaa dhammaan marti sharafta inooga timid dalka kale
iyo diblomaasiyiinta ka soo qayb galay aad iyo aad baan idinku mahadnaya dhammaanteen wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu intaanan waxaan iloobay qodobkii ugu dambeeya bariis iyo fadhiista waxaan doonayaa inaan soo dhaweeyo xubnaha baarlamaanka ee soo baxay oon jecelahay inta joogtaa inay istaagto oo loo sacabiyo dhammaantoodba xubnaha baarlamaanka ku soo baxay wejigiina hala arko istaaga inta ka joogta aad iyo aad baan idinku soo dhaweynayaa inaad ka qayb noqotaan golayaasha xisbi qaranka idinkoo xisbi walba ah oo aad hawsha qaranka dhinaciina ka qaban doontaan soo dhawaada aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa inaad hawshan la qabataan ood kor u qaadaan dhalinyaro baantiin ayaan rajaynaynaa fadhiista ha istaageen golayaasha deegaanka kuwii ka soo baxay oo u horeeyo meeyarkii ugu cod badnaay weligii la doorto iyo ku-xigeenkiisuna ha istaagaan waxaa golayaasha kolley hargeysa u baantiin kuwa kalena halkoodaan ku salaamayna iyo kuwa gobollada ku maqan meeyarada la doortay degmo walba waxaanu ka rajaynaynaa inay u qabtaan hawlo badan qaranka idinkaa hawshii badeed ku dhacaysaa idinkaa qaranka u dhow ololaha wixii aan u soo ballan qaadan wada heli maysaan dadkuna ayuu idinka wada rajaynin laakiin waxaa inaad qabataan dadaal badan oo hor leh oo uu dadku dareemo in dhig cusub soo kordhay ayaan idinka rajaynaynaa waa idin garab taaganahay meeyarka cusubna xil weyn baa ku furashanoo hargeysa codka ay ku siisay waxqabadkeeda lagaa sugaya wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi madaxweynuhu wuxuu iminka u baxayaa inuu heestii calanka inta la shido calankii jamhuuriyadda somalilan inteena kale inagoo kuraasideenna joogna ayaynu halkaa uga saro kacaynaa calanka jamhuuriyadda somalilan
Go. Go.